الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ولاليال ما انتو حنو ذا حديث قيمة بدن وانا حديث كي صدونات كان من أحاديث تحنا هذه نص صعطي وحرسول كل الله صلى الله عليه وسلم 7 يذلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله تدوبا أيام مالين تقياما إلهي هوس كيس أهرين يا مالين عن هوس جيرين كيس مويه تدوبدا waxaa kamida shaabun nasha fi cibaadatillahi ta'ala nin dhalinyaro ah oo ku koray oo ku barbaaray oo ku weynaaday ilaahay subhanahu wa ta'ala cibaadadiisa yaani dhalinyaranimadiisa laga bilaabo salaax iyo fiicnaan iyo wanaag iyo khayr ay ku jiray markay dhalinyaradu heesta dhageysanayeen isagu quraanku dhageysanayay markay buushka ku qayilayeen isagu masaajidku ku jiray markay xan iyo been dabaalanayeen isagu dacwadu dadka gaarsiinayay markay maala yaani iyo waxan loo baahiyo hadalan loo baahnayn ku jireen isagu subhanallahi walhamdulillahi buu ku mashquulsanaa walaalayaal dhalinyaradu waa fursad qaaliya fursad dahabiya weeye waa xilligii wax la baran lahaa waa xilligii quraanka la xifdin lahaa waa xilligii salaad badan la tukan lahaa waa xilligii inta shaqaysato wax sadaqaysan lahayd waa xilligii xoog joogay weeye لكن مع أسف الشديد dhalinyarada waayahan jooga say u badan yihiin maaha dhalinyaro waqtigooda iyo noloshooda ka faa'iideysanaya waa dhalinyaro halowsan oo iyagoo dhanba wareersan waa maru maala yaani joogo oo waqtigiisa luminayo iyo maru waxaan ilaahay subhanahu wa ta'ala raali ka ahayn ku jiro iyo maru gaalada isu ekaysiinayo oo dhaqankooda iyo lebiskooda qaadanayo naftoodii bay burburinayaan mustaqbalkoodii bay burburinayaan noloshoodii bay burburinayaan akhlaaqdoodii bay burburinayaan waqtigoodii iyo umrigoodii iyo aqligoodii iyo xoogoodii iyo xoolahoodii iyo xiniyahoodii waxay ku baabiyeen meel ilaahay subhanahu wa ta'ala raali ka ahayn oo rabbiga inay abuuray war ilaaha inay abuuray ka baqa وربك حقيس الله لابنايو كبقى وربك إسلامنimada iyo إسلامنimada inuu ku dhaliyay kabaqa war aakhiradiina u baqa war qabrigiina u baqa war qiyaamihiina u baqa war cadaab aakhiro nafiin lafiina haw shaqaysanina war dulli adduunyo ha kasbanina haddaad ilaahay dariiq wanaagsan oo toosan oo fiican wax kaga doonato waa ku abaal marinaya hadaa dariiq xun oo khaldan oo khariban ki yahuuda iyo kufaarta iyo dadka dhaqanka xun aad wax kaga doonatona waa kugu abaal marinaya wardhalinyaroy waqtigiina ka faa'iideysta oo isku daya ina ka mid noqotaan todobada maalinta qiyaamaha ilaahay hooskiisa u harsiinayo maalinta aan hoos iyo harjirin laakiin ila arshiga rabbi hooskiisa mooyee waa maalinta qiyaamada ويوم الفزع الأكبر ومالنت قرحة لسود دوينايو ومالنت دتكو ديدايانين oo dididku dhulka hoostiisa galaayo maalinta u diyaar garooba oo u sahiqaata walaaliyaal xadiidkan waa xadiis saxiixa si sheer gareeya sina faafiya walaalihin gaarsiyo jazakumullahu khayran